عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحسلامينا دمان والدين تربية تعليم أونلاين. waxaan idiin soo gudbinaynaa barnaamij noqon doona taxane jimco walba haddii ilaah yiraaho waan ugu talagalnay waalidiinta tarbiya tacliim inay ka faa'iidaystaan. waa barnaamij aan doonayno markaasi waalidiinta inay xifdiyaan mawaadiicda aan soo qaadan doono waa mawaadiic muhiim ah oo ka kooban aadna muhiim u ah insha allahu tacaala. marka inaad ku dadaashaan baan idinka codsanaynaa insha allahu tacaala, noona soo duceysaan in ilaahay noo fududeeyo. waxaan isku dayi doonaa in jimco walba salaada intaanan la gelin ka hor xilliga yurub saacadda markay tahay inaan idiin soo gudbino insha allahu tacaala. waxaan ugu magac darnay 1 daqiiqo tarbiya tacliim 1 daqiiqo. wuxuu noqon karaa 1 daqiiqo ama wuxuu noqon karaa ilaa 5 daqiiqo ugu badnaan 5 daqiiqo noqon karaa. marka insha allahu tacaala waxaan idinka codsanaynaa inaad barnaamijkaasi ihtimaam gaar ah siisaan oo aad ka faa'iidaystaan waalidiinta naguna dhiirisaan inaan soo badino insha allahu tacaala oo si aan sii wadno. sababtoo ah haddaan samayno wixii oo aan aragno inaanan macnaha muhiimad la siinin markaasi waxay iska noqonaysaa qofka inuu ka caajiso. marka inaad nagu dhiirigelisaan insha allahu tacaala. danta aan kala nahay iyo niyadeennana ilaahay baa og. noo soo duceey insha allahu tacaala. waa mahadsantihiin. marka qof walba waalid walba oo aanan helin maalinka jimcaha ah wuu soo weydiin karaa tarbiya tacliim. maanan helin barnaamijkii 1 daqiiqo tarbiya tacliim maxaa dhacay. marka insha allahu tacaala waan idin soo diri doonaa. maanta waxaan kusoo qaadanaynaa xilliyada salaada ama salaadaha. islaamka wuxuu leeyahay salaado, macnaha salaad kaliya ma waa salaado badan. noocyada salaadahaasna waan baran doonaa. hadda waxaan ku bilaabaynaa xilliyada salaadaha, inkastoo ka wanaagsaneed noocyada inaan bilaawno, laakiin hadda barnaamijka ii furan waa noocyada salaadaha. waxaan ka wadaa xilliyada salaadaha. marka noocyadana waa baran doonaa insha allahu tacaala. qaala tacaala ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta. salaada waxay noqotay waajib lagu farad yeelay qof kasta oo mu'min ah xilli cayiman. sidaa darteed qofka muslimka ah wuxuu ku dadaalayaa ilaalinta waqtiyada salaadaha. ileen lagamana horumarin karo, lagamana dibdhigi karo, waana waajib farad ah oo aayaddaasi qur-aanka ku cad. salaada fajar waxay ka bilaabataa marka uu dhasho fajarka runta ah, dhalashada fajarka runta ah ilaa qorax soo bax. waa karaaho in lala sugo xilliga ay qoraxda soo baxayso, waxaana wanaagsan qofka inuu horay u tukado. fajarka saadiqa ah ama runlowga ah iyo fajarka beenta ah waan kala baranaynaa insha allahu tacaala. xadiiskan ayuu nabiga sal allahu alayhi wasalam inoogu sheegay can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala rasuulullahi sal allahu alayhi wasalam alfajru fajraani. fajarka waa 2 fajar. fajrun yuxramu tacaam, fajar waxaa la xarimaa cuntada. wa tuxallu fiihi salaa, salaadana waa la ogol yahay in la tukado. waa fajarka runta ah ee salaada ay soo gelayso. cuntada waxaa loola jeedaa suxuurta ayaa loola jeeda oo xilligaasi haddii fajarka runta marka uu dhasho waa in salaadii subax la tukadaa. cuntadana waa xariman tahay, cunto lama cuni karo qofkii markaasi soon ku waajibay. wafajrun tuxramu fiihi salaa, fajarna salaadii waa xariman tahay in la tukado ay salaatu subxi. wa yuxallu fiihi aطcaam, raashinkana waa la ogol yahay in la tukado. rawaahu ibnu khusayma. macnaha kaasna waa fajarka beenta. fajarka beenta waxaa loola jeedaa salaadii cishihiina waa waqtigeeda waa soo dhammaaday, salaadii subaxna lama soo gaarin oo fajarkii runta ahaa. waa fajar beenlow ah oo markaasi u dhexeeya oo intuu soo baxo haddana demo oo mugdi noqdo kadibna fajarka runtaa dhasho. marka xilligaasi waa karaaho, salaad in la tukado lama ogola, laakiin suxuurta ayaa xilligaasi u dambaysa. marka sawirkan waxaan kasoo helay internetka, allahu aclam. marka labada fajar noocaas ay u kala egyihiin. inta badan waxaa laga arkaya dee dhulkeena Afrika iyo jasiiratul carab ama dhulalka kulul unbaa laga arki karaa. wadamada reer galbeedka inta badan roob iyo mugdi iyo waxbaa iska jiro, marka lamaba arkaba qorax haddii la doono ama waa beri lama arko. marka kan hadda bidixda ka muuqda waa fajarkii runta ahaa ee saadiqa ahaa. kan midigta ana waa fajarka beenlowga ama beenta ah. fajarka beelowga waxay ku kala duwan yihiin. fajarka beenta ah sidaas ayuu u baxaa, kor ayuu u baxaa sidaad aragtaan. daqiiqada yar kadibna haddana mugdi buu isu bedelayaa, mugdi buu noqonayaa.
markaa kadib waxaa dhalanaya fajarkan runta ah oo markaasi marba marka dambeysa sii ballaaranaya ilaa ay qoraxda kasoo baxdo. sidoo kale fajarkan dhinacyada u faafaya fajarka runta ah, kanna wuxuu u baxaa kor ayuu u baxaa oo dhinacyada waxaa ka jira mugdi. marka noocyadaas ayaa lagu kala gartaa, wallahu aclam. marka fajarkan beenta ah suxuurta waa la suxuuran karaa, laakiin salaad lama tukan karo oo waa mamnuuc. fajarkan hadda salaadii baa la gaaray, salaadii subax, marka cunto lama cuni karo weeyaan. salaada duhur waxay ka bilaabataa marka qoraxda u weecato bartamaha samada ay ka weecato oo dhanka qorax u dhacay u weecato, oo markaasi shay walba iyo hooskiisana ay isla ekaadaan, isku jaan go-aan, oo marka dheerarka hooskaaga iyo adiga aad isla ekaataan macnaha ilaa macnaha tusaalooyinkan ama cilmigan laguma dabaqi karo dalalka Yurub. qofku waxa laga yaabaa inuu isweydiiyo maba arkayna hada maxaa macnaha aan ka faa'iideysanayna inuu dhaho maba arkayna qorax iyo waxaas maxaan ka faa'iideysanayna. laakiin muhiimadda waxay tahay wax walba waxay leeyihiin asal, shay walba wuxuu leeyahay asal iyo asaas iyo meel uu ka soo faracmo. qofka hadduuna baranin asalkaasi faracana ma baran karo. waxyaabahan kale oo dhan oo aad arkaysaan iyo saacadan hadda la isticmaalayo iyo dayax gacmeedkan iyo waxyaabahan horumarkan la gaaray iyo waxaan dhan waa waxay iska noqonayaan waxyaaba farci ah oo markaasi looga qiyaas qaadanayo asalka. marka waa muhiim qofka muslimka inuu barto asalka diintiisa, inuu barto waa muhiim si uu macnaha u fahmo xataa waxyaabahan qiyaasta ah. wixii intan ka soo haro waa qiyaas. xiliyadan uu nabiga calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay wixii ka soo haray waa qiyaas. inta badan hadda dalalka macnaha reer galbeedka waxaan ku tukanaa qiyaas, ma ku tukanaa qiyaastana halkan ayaa laga keenaa. marka salaada duhur waxaan nidhi marka qoraxda wax yar ay ka weecato bartamaha samada ee uu shay walba hooskiisa ku jaango ama la ekaado bay noqonaysaa. salaada casarna goormay bilaabanaysaa? marka salaada casar waxay ka bilaabanaysaa marka uu shay walba hooskiisa ka gaabto, hooskaa dheeraanayo, macnaha qofkii baa gaabanaya, waad istaagtay hooskaaga kaa dheeraanayo. macnaha qoraxda markay dhinaca galbeedka u weecato oo hooska marka hore waxa hoosku isku jaango'aysaan, horta waa isku jaango'aysaan, duhurkana lama gaarin, markaas wax yar baa ka dhiman. hooskana wuxuu gelayaa markaad toos isqotomiso oo si toos u istaagto. macnaha markaan joogno dalkeena ka hadlaya Soomaaliya, wuxuu gelayaa labada lugood dhexdooda ka gelaya, macnaha waa isku jaango'aysaan. marka ay waxoogaa dhinaca galbeedka u dhaqaaqdo qoraxdana oo duhurka xilligiisa ay tahayna hooska xaggu u baxayaa, laakiin haddii la qiyaaso adiga iyo asaga waa isla egtihiin, dherarka isla ekaanaysaan. casarkana way sii durkaysaa qoraxdii oo galbeedka bay usii socotaa, marka wuu kaa dheeraanaya. xilligaas uu kaa dheeraanayo hooskaaga bay ka bilaabanaysaa salaada casar insha allahu tacaala ilaa laga gaaro qorxa dhaca ama wax yar ka hor isfiraarka xilliga la dhaho. isfiraarka waxa weeyaan xilli u dhexeeya boroborow baa la dhahaa af Soomaali, waa xilliga u dhexeeya salaada casar iyo maqribka u dhexeeya. waa xilli aan la hubin qoraxdii ma dhacday mise shaki ku jiro oo qoraxda hoos u sii dhawaatay. xilligaasi in salaad la tukado waa mamnuuc, waa karaaho. marka waxaa wanaagsan in salaada casarka xilli hore la tukado si xilligaas aadan ugu dhicin insha allahu tacaala. maqribka wuxuu ka bilaabanayaa marka isfiraarkaasi ama boroborowgaasi baxo oo markaasi la hubsado qoraxda inay dhacday ilaa sagalka guduudan ama casaanka sidaas looga yaqaano waqooyiga. macnaha sagalkaasi wuxuu u dhexeeyaa waa sagal guduudan oo liilan ah oo soo harayo, oo macnaha marka salaada maqrib ay dhamaato laga sii arkayo dhinaca qoraxda ay u dhacday. maqribkii markaasi wuu sii dhamaanayaa. halkaasi waxaa ka bilaaban rabaa sagalkaasi ayuu ku egyahay maqribka. sagalka markuu sii baaba'ayo guduudan uu sii dhamaanayana waxaa bilaabanaysa salaada casar. waxaan ka wada waxaa bilaabanaysa salaada cisha bilaabanaysa caynkii waan isku khalday. marka salaada cisha ayaa halkaa ka bilaabanayso sagalka guduudan markuu sii dhamaanayo. salaada cisha waxay ka bilaabanaysaa marka uu qarsoomo sagalka guduudan ama casaanka ah ilaa fajarka beenta ah. ilaa fajarka beenta waa fajarka beenta hadda aan soo sheegaynay aan lahayn salaada subax lama tukan karo, waxaana ka horeeya fajarka runta ah. marka sidoo kale waa karaaho in lala sugo salaada cishaha, in lala sugo xilliga fajarka beenta in lala sugo waa karaaho. waxaana wanaagsan in la tukada ka hor inta ay saacadda noqonin 0:00 intayna noqonin, macnaha bartamaha habeenka intaana la gaarin baa fiican in la tukado sida sunnada ah. marka asxaabi halkaas ayaan ku joojinaynaa maanta casharkeena. waa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala.